maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la soo taagay laba eedeysane oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab sidoo warbixintaasi inoogu faahfaahinayo wariyahayga Muqtaar Cabdi Aadan. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta la soo taagay laba eedeysane oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo lagu kala magacaabo Canshuur Cismaan Abuukar iyo Maxamed Cali Borow Aadan. labadan eedeysane ayaa al-shabaab u qaabilsanaa weerarada loo isticmaalo gawaarida iyo sahminta goobaha rayidka sida maxkamaddu ay sheegtay. eedeysanaha koowaad Canshuur Cismaan Abuukar ayay maxkamaddu sheegtay in loo haysto weerar lagu qaaday gaari hortab Land Cruiser ah bishii 8 ee 2017. Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa faahfaahin ka bixiyay eedeymaha lagu soo eedeeyay labadan eedeysane. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 22 bishii 12 2018 waxaad ahayd abaabulihii qaraxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux oo uu ka mid ahaa wariye Cawil Daahir Salaad kuna dhaawacmeen 55 qofood oo kale iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii aad uga degtay gaariga labaad ee saarufka ahaa taalada daljirka daahsoon gaarigaas oo isagana qarxay ayna ku geeriyoodeen marxuumiin ay ka mid ahaayeen 1 Faysal Salaad Samow 2 Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macallimiin ka ahaa iskuulka Yaasiin Cismaan. xeer ilaaliyaha guud ee ciidanka qalabka sida gaashaanla sare Cabdullaahi Buule ayaa fadhiga maxkamadda ka sheegay in labadan eedeysane ay ku hayaan cadeymo iyo marqaatiyaal inta kiis oo ay galeen. Canshuur da'diisa iyo dhaqankiisa marka la isu fiiriyo waxa uu ku kacay waa jariimo bani aadanimada ka baxsan waa nin ku bahaloobay dhiigga dadka waxa uu ku kacay dambiyada uu ku kacay wax la malayn kara hatta qof caadi ah malayn kara ma way ka baxsan tahay waxaan haynaa cadeymo markhaatiyaal inta kiis oo uu galay oo cajiibka. Muqtaar Cabdi Aadan wararka warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.